gudoomiyaha gobolka Gabiley Maxamed Cismaan Indhabela ayaa xabsiga u taxaabay suduwii wasaaradda gaadiidka iyo jidadka ee gobolka Gabiley Iid Cabdiraxmaan Sheekh Cabdilaahi barasaabka gobolka Gabiley ayaa TV-ga Ariel wax ka weyd xadhiga suduwahaasi waxaanu ku jawaabay sida gudoomiye malalo way kartaa xadhiga mas'uulkaas adigoo reer raaliya wax la shiritaan shaxmarin weyn taasi adiga waa shaxmarin karay khilaafka isku duwaha iyo barasaabka gobolka Gabiley ayaa ka soo bilaabmay sharci saaka isugu yimaadeen barasaabka iyo suduwayaasha laamaha wasaaradaha ee gobolka Gabiley waxayna isku khilaafeen habka loo bixinayo liisamada gaadiidka yaryar ee bajaajta arrintaasi oo muddooyinkii u dambeeyayba uu khilaaf ka taagnaa isuduwahani ayaa noqonaya isuduwihii labaad ee barasaabka gobolka Gabiley oo xidhan muddo 2 bilood gudahooda waxaana ka horreeyay isuduwihii hore ee wasaaradda isgaarsiinta gobolka Gabiley oo isagana isku khilaafeen habka ogolaanshaha biraha ay shirkaduhu ka dhex taagaan xaafadaha iyo suuqyada magaalada Mukhtaar Nuux Ibraahim Ariel TV gobolka Gabiley adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida